gabar 13 jir ah ayaa adduun lacageed dhan 63,000 oo dollar waxa ay ku ciyaartay ama ku bixisay video game. intaan u gudagalin sheekada daawada hadii ay tahay markii kugu horeysay ma soo booqato nagu soo biir mahadsanid. waalidiin u dhalatay dalka Shiinaha ayaa waxa la yaab ay ku noqotay markii gabadhooda oo 13 jir ah adduun lacageed dhan 63,000 oo dollar ay ku bixisay ciyaarista video game. waalidiintan ayaa mar qura waxa ay ka war heleen akoonkoodii oo faaruq ah. kaliya akoonkaasi waxa loogu tagay $1. haweeneydan iyo seegeeda waxa ay waqti badan lacag ku wada aruursan jireen si wada jir ah akoon bangi. gabadha yar ay dhaleen ay 13 jirka ah ayaa waxa ay isticmaali jirtay magaca kaarka bangi ee ku qoran hooyadeed si ay mar walba lacag uga baxdo. laakiin gabadhan ayaa sameysay wax la yaab leh kadib markii ay lacagtii oo dhan ay ku bixisay ciyaarista qamaara video game ah. gabadhan ayaa sida aan sirteeda loo ogaan waxa ay tirtiri jirtay akoonka fariinta uga soo dhacda lambarka hooyadeed markii uu qofku lacag kala baxo. gabadhan ayaa waxa ay gaartay heer ay qabatinto ciyaarista video game-ka. waxa ay saaxiibadeeda u iibisay video game-yo lagu ciyaarayo lacago. adduun lacageed dhan 100,000 oo dollar ay maslaxa ahaan waxa ay u siisay saaxiibadeed. hooyada dhashay gabadhan waxa ay sheegtay in ay ka shalaynayso in ay gabadheeda siiso lambar sireedka akoonkeeda maadaama iyadoo ay islahayd markii gabadhaada ay lacag u baahato adiga oo jira meel dheer si sahlan ha ula baxdo. laakiin waxa ay sheegtay in aysan marnaba ka filaneyn gabadheeda in ay lacagtii ay waqti badan wada urursanayeen iyada iyo aabaheeda ay si sahlan ku baabi'in doonto.